fanaanka Soomaaliyeed ee caanka ah ee dadka Soomaalidu ay u yaqaaniin boqorka codka Maxamed Suleymaan Tubeeca ayaa waxa uu ku xanuunsanayaa wadanka Jarmalka waxaana Maxamed Suleymaan Tubeeca uu ka codsaday dawladda Soomaaliya ee shacabka Soomaaliyeed in kaalmo markaasi lala soo gaaro iyadoo oo la sheegayo in xanuunkiisa uu u baahan yahay qalliin oo ku baxayo qarash aad u fara badan. Germany waxa uu ogeysiinayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel ay joogaanba Maxamed Suleymaan Tubeeca ayaa la ildaran xanuunkaasi oo lagu xiray dhaqaale fara badan oo lagu qalayo waxaana uu ka codsanayaa dhammaan muxsiniinta Soomaaliya meel kasta ay joogaan in ay ka qayb qaataan Regensburg oo ay ku yaala gobolka Bayer ee dalka Jarmalka. Abdirashiid aad iyo aad baan ku mahadnaqayaa idinka iyo maxayto adiga iyo maxayto kooxda telefishinka Sheeshidba boqoshada iyo halkan igu timaadeen aad baan ku mahadnaqayaa si aad jeedaba waa meeshan ku jira dhakhtar weey oo Jarmalkii marka waxaan ka codsanayaa ummadda Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa marka hore u horeysa in la duceeyo ducaan ka codsanayaa mar labaad waxaan ka codsanayaa dawladda Soomaaliyeed inay arrintaas maanta haysta xagga caafimaadka ay talaabo ka soo qaado oo ay gargaarto baan ka codsanayaa shacabka Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa fanaankiini waana ninka aad u bixiseen boqorka codkaana maanta aad baan ku baahanay waxaan ka filayaa kaalmo inaad soo kaalmeysaan oo ay ku soo kaalmeysaan si caafimaadkayga maartay ilaahay idinkii dhibaatada aan uga baxo oo wixii qof walba uu heli karo rag iyo dumar oo qof walba ay soo kaalmay. Intii aan ku jiray booqashada waxa aan la kulmay Mustafa oo ah wiilkii Maxamed Suleymaan Tubeeca wuxuuna hadaladiisii ku bilaabay sida tan. Bismillaahi wa salaatu wa salaamu ala rasuulillah sallallahu alayhi wa sallam. Sida wada arkaysaan waxaan joognaa magaalada Regensburg waxaan u nimid xaalad caafimaad anigoo ah wiilkii u dhalay Maxamed Suleymaan Tubeeca marka dadweynaha Soomaaliyeed iyo dawladda Soomaaliyeed waxaan ka codsanaynaa arrintaas in ay naga soo gargaaraan sababtoo ah aabbo waxa lagu xiray caafimaadkiisa lacag fara badan iyo adduun fara badan baa lagu xiray annaguna markii hore kumaanu tashan hawshan inay imanayso waxaan u nimid si baaristaan ahaa laakiin iminka hawsha waxay isku bedeshay qalitaan marka waxaan ka codsanaynaa dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay arrintaas naga soo caawiyaan. Xaaladiisa fanaanka oo aad iyo aad ugu baahan gurma degdeg ah si loogu fidiyo qalliinka ay ugu tala galeen ayaa waxa laga codsanayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed inay qayb libaax leh ay ka qaataan waxaanu ay ka codsadeen ahaladii Maxamed Suleymaan Tubeeca inaysan maanta awood u lahayn